وهاجاك أخيارت شرفت عليها وذا ساتوس كان أقول لك كسر ولا برنامج كذي تطبق لها سحرك بوليس كأي بالشدة وتطبقات كنا كسر قادر دونه ورئيس أنا يندون تليها عيدا كأمن ودوي كيدول ديجا سوماليدا عبد الله محمد صلاة أو نجوم رمي دونا قرشها سنة كلا بدأ كون يشاني طبعا كعيدا كأمن ودوي كوحياها أو قرش يسترين قبطان سيدو كلنا هرجرينتا سرينتا شرعية أيام كسر قادر دونا عدة اللغة بهاي إلى سكتو waxaa kaloo barnaamijkeena aan ku eegi doonaa waxqabadka ciidanka amniga wadooyinka toddobaadadii ugu dambeeyay wixii ay qabteen iyo dakhliga ay soo hooyeen iyo nidaamka sareynta sharciga qaabka ay u ilaaliyeen Cabdullaahi ku soo dhawow barnaamijkeena toddobaadkan ee isku xirka booliska iyo bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim aan idinka mahadcelinayaa marka hore inaad nagu soo booqataan xafiiska ciidanka ilaalada amniga wadooyinka oo waraysi nala yeelataan sida aan wada ognahay muddooyinkii dambe deegaankeenu waxaa ku soo badanayo tirada gaadiidka oo la socda dhaqaalaha soo koraya deegaanka wadooyinka ma garanaysaa soo badanaya deegaanku iyo waxyaalo la mid ah marka arrimahaas oo u baahan in qorshe laga sameeyo oo qorshe laga yeesho waxa weeyaan ciidanka ilaalada amniga wadooyinku waxay ka howlgalaan caasimada deegaanka iyo goboladaba waxyaalaha marka noo qorsheysan hadii la yiraahdo magaalada caasimada oo kaleeto waxaa jira wadooyin tiro badan oo ay xukuumaddu sameysay iyo qaar badan oo gacanta lagu hayo sameyntoodiba marka wadooyinku markay soo bataan waxa soo badan hay gaadiidka markuu soo batana waxa soo badan hay shilalka taa marka waxa loo baahan yahay wixii taxadar iyo dadaal ee loo baahan yahay in laga sameeyo marka magaalada hadda ciidanka ka howlgala tiradiisa markii la dhameystiro wadooyinkan hadda dawladda ay gacanta ku hayso waxa loo baahan doonaa ciidan oo dheeraada tayadiisuna ay sareyso marka in ma garanaysaa la hirgeliyo sareynta sharciga waxyaabaha loo baahan yahay hadii aan ka hadlayaduna sareynta sharciga in la hirgeliyo waa in la isla helo ciidan tira ahaan iyo tay ahaan iyo anshax ahaanba u dhisan sidoo kale waa in la helo bulsho u hoggaansan sharciga ciidanka hadduu tiro kasta leeyahay tayo kasta leeyahay anshax kasta leeyahay oo bulshadu aysan u hoggaansaneyn sharciga ma hirgelaysa sareynta sharciga waa laga maarmaan marka bulshadu inay u hoggaansanaato sareynta sharciga tusaale magaaladeena hadda laydhadh baa lagu soo biiriyey laydhkii taraafikada ama wadooyinka ee gaadiidka kala hagayay oo casri ah weliba hadda haddaan soo qaato wadadan halbowlaha magaalada halka laydhka uu kaga yaalla ee ah ma garanaysaa hoolka sayid maxamed cabdillah xasan hortiisa wadadu isgoysku 3 baabuur baa iskarib geli karayo waxaa loo baahan yahay markaa baabuurku markuu ka yimaado xagga taalada sayidka ee uu soo jeedo xaggan laydhka taraafikada hadii uu yahay gaari u socon hayo toos u baxayo inuu bartamaha qabsada loo baahan yahay falaadha bartanka ee wadadu ay leedahay inuu qabsado hadii uu yahay gaari u baydhaya dhanka bidixda inuu falaadha bidixda uu qabsado iyadana yaa loo baahan yahay haduu yahay gaari midig u baydhayana iyo xagga ay taymanka cusubna inuu qabsado falaadha midigta falaadhaasoo markasto haadkaasoo markasta iska fasaxan isagu laakiin waxaad arkaysaa gaari u socdo toos u socdo oo gelahayo falaadhi midig tahayd ku midig u baydhayo oo gelahayo falaadhi bidix tahayd ku ma garanaysaa bidix u baydhayo oo gelahayo falaadhi midig tahayd arrimahana waxay ku keenayaan wadada istaakul iyo cabur bay ku keenayaan marka qodobkaas waxaan jecelahay in horta bulshadu sida intay u ogaato gaari kasta haadka u socdo oo soo qabsado markuu leerka uu ku soo dhawaado ka midig u baydhayo inuu haadka midigta soo qabsado ka bidix u baydhayo inuu haadka bidixda soo qabsado ka toos u socon hayana haadka bartanka inuu qabsado laakiin gaariga isagoo bidix u baydhayo ama toos u baxaya hadduu haadka midigta qabsado baabuurtii bayr lahayd ee haadka midigteed markasta u fasaxnaa ee socon lahayd ayuu wuxuu ku keenayaa istaakul iyo cidhiidhi buu ku keenayaa arrinkaasi marka bulshadu horta inay sidaas ay u fahanto sharcigu sidaa u ilaaliyaan midda kale
waxaa weeyaan leyrku waa istaag soco iyo digniin weeyaan calaamadahan way yaqaanaan dadka intooda badan inay iyaguna tixgelinayaan oo calaamadda istaagta markay casaanka ay soo baxdo gaadhigu intuusan soo gaarin meesha la yidhaahdo zibraaga ama loogu talagalay dadku inay ka tallaabaan intuu soo gaarin inuu haadkii u socday isagoo haysta uu istaagaa loo baahan yahay soco markay digniinta calaamada digniinta markay soo baxdana waa inuu diyaar garoobo weeye gaadhigu kii wadada ku jirayna inuu deg deg ooga baxo wadada kii taagnaana inuu diyaar garoobo oo inuu dhaqaaqo u diyaar garoobo weyaan marka calaamadahaasna way garanayaan dadku inay iyaduna tusaale ahaan baan usoo qaatay in ma garanaysaa nidaamka ay sidaa u bartaan bulshadu ay sidaa u ilaaliyaan bulshaduna ay isgarato cidda ugu horeysa la doonaya saraynta sharciga inay hirgeliso inay iyada tahay weyaan bulshada lafteedu leyrka marna wuu joojinayaa marna wuu fasaxayaa iyaga laftooda markay meesha leyrka kusoo dhawaadaan waxaa loo bahay inay taxadar sameeyaanoo siduu ninka darawalkee gaadhiga wada u taxadarahayo calaamada leyrka uga taxadarahayo yaa loo baahanya ninka lugeynhayana inuu calaamadaha leyrka uga taxadaro inuu isagoo magaranaysaa qulubtiisa maqantoo teleefon ku hadli soo gala wadada maaha inuu isagoo sheekaiyo maaweele kala haysta soo gala maaha waa in isagoo sharciga ilaalinhayo oo marka loo fasaxana dhaafaya marka la joojinaya istaagahayo uu soo galo wadada weyaan iyada lafteeda bulshadu dadka lala hadlaya maaha dadka gaadiidka wato dadka lugeynaya laftiisa waxaa looga baahanya inay ilaaliyaan xeerka ma garanaysaa wadooyinka gaar ahaan calaamaha traffic lightka inay ilaaliyaan baa loo bahanya hal qodob oo ma garanaysaa aan rabo bulshadu inay si fiican ay u fahantana haddii bulshadu iyadu aysan ku dhaqmin sharciga iyadaa ka ah mulkiile iyadaa ka horta bulshadu ciidankan waa wiilashoodii weeyaan waa dhalinyarada iyaga kasoo dhexbaxday wey waxay u shaqeynayaan waa iyaga wey marka si ciidanka anshaxiisa loo saxo iyaguna inay saxaan horta ku dhaqanka sharciga oo iska saxaan ma garanaysaa waxyaalaha falalka sharci darrada ah inay gaar ahaan gaadiidka dadweynaha inay sidaa iskaga saxaan ayaa loo baahanya markaa saraynta sharciga in la hirgeliyo ninba dee waxbaa kaga aadahayo ciidanku in ma garanaysaa tallaabooyin saxitaan oo xagga anshaxa la xidhiidha la qaado waa loo baahanya tababaro in la siiyana waa loo baahanya oo in xagga garaadkooda ma garanaysaa tababaro gaagaaban ay helaan waa loo baahanya tira ahaan in loo dhisana way u baahan yihiin laakiin bulshadu iyaduna waa inay ma garanaysaa ay fahanto haddii iyadu aysan u hogaansamin sharciga aysan marnaba saldhiganaynin ku dhaqanka saraynta sharciga waa hagaag waa hubaal muxuu ahaa mar haddii caynkaas marayso waxa weeyaan qorshayaasha kala duwan ee ciidanka amniga wadooyinku waa mid muxuu ahaa kulley muuqata marka la eego dhinaca baarista iyo dhinaca saraynta sharciga iyo qaabka u kuurgalida gawaarida sharci darrada iyo kuwa sharciga baryaha dambena muxuu ahaa ay muuqato in isla xisaabtankood dabcan uu kor usii kacayo taliya waxaan jecelahay bal mar labaad inaan ogaano haddana waxqabadka ciidanka amniga wadooyinka maalmihii ugu dambeeyey ama bishii ugu dambeysay haddaanu soo qaadana waxqabadkooga waxaad is leedahay haddii aan eegno dhinaca dakhliga oo ay soo hoynayaan haddaynu eegno muxuu ahaa ciday tallaabo ka qaadeen muxuu ahaa sharci darro samaysay si aan bulshada iyo inagu hanu ogaano bal waxqabadka ciidanku ay qabteen ciidanka amniga wadooyinka aad baad umahadsantahay cigow tusaale ahaan haddaan soo qaato kowdii bishii labaad 2015 ilaa 15 bishan labaad waa 15 maalmood waa 2 isbuuc baan malaynayaa haddaan waxqabadka ciidanka anoo ka jawaabayo su-aashaasi aan wax yar ka taabto magaalada caasimadda ee deegaankeena ee jigjiga keliya ciidanka ka howlgala ee amniga wadooyinka gaadiidka ay ka tallaabo qaadeen ee sharciga la mariyey waa 817 dirawal wey dakhliga dowladda u xarooda khasnada dowladda ku dhacayna waa 858 kun oo bir wey waa caasimadda waa 15 beri kuma jirto dadka waana la siiyey wax loo sheegay shakhsiyan loo wacyigeliyey kuma jiraan oo intaa ku laba laamahayo taas markaas
waxqabadka ciidanku haddii aan si gaaban ooga jawaabo 2 toddobaad u dambeeyay taas weeye marka ma aha waxqabadka ciidanka ma aha oo kaliya in ruuxa laga talaabo qaado la ganaaxo dadku waxay isugu jiraan dad sharci leh oo sharcigooda u dhameystiran yahay oo xeerka ilaalinayo iyo dad khaladaad ma garanaysaa ku xadgudub xeerka gaadiidka uu ka muuqdo marka ciidanka hadda annaga qorshaha aan siinay rabo bulshada inay ogaato haween ciidanka waxaan u sheegnay kow ruux sharci leh oo liisan leh horta liisankiisa inaan laga qaadi karin isagoo warqadii eedda la siinin isagoo warqadda eedda la siinin ruuxa wax liisanka laga qaadi karaa kaliya hadduu isagu diido inuu qaato warqadda eedda uu hoggaansanaan waayo oo amiirtu raaci waayo waa laga qaadi karaa liisanka laakiin haddii ruuxii khalad buu galay waa la joojiyey sharcigiisi baa la weydiiyey liisankii uu leeyahay taarikooyinkii baa ku xidhan xubinkii markuu la hadlay uu istaagay macnaha khaladka xagale hoggaansanaan buu muujiyey sharci ciidanka waan u sheegnay waxaa habboon in loo digo waa loo sheegay marka koowaad taraafikadu maaha inay tallaabo ganaax u qaada maaha in dadka wax loo sheego wax la bara lafteeda haddii uu saxmi waayo berito iska soo noqonaya horta kow waxaan u sheegnay ciidanka marka waxaa weeyaan in ruuxa isagoon warqadda eedda la siinin aan laga qaadin liisanka waxaa laga qaadi karaa kaliya ruux haddii la siiyo warqadda eedda ama uu diido inuu qaato isla markaa marka ruuxa warqadda eedda la siiyo waa in loo sheego halka uu liisankiisa ka qaadanhayo oo ugu tagayo xubinkana waa in muddo aan ka badnayn 24 saac uu geeyo xafiiska laga xukumo taraafikada siduu xeerku qabo weeyaan waa xeer arrimahaas oo inta badan ay cabashadu kasoo noqnoqoto bulshada waxaan u sheegaynaa nin kasta oo liisan wato isagoo warqadda loo qorin liisankana laga qaadana haddii laga qaadana in warqadda loo qoro haddii uu isagu diido warqadda inuu qaato waa khagaar arrinkaas ciidankana waan u sheegnay bulshaduna inay sidaa u ogaateen doonaynaa waxyaalaha ruuxa ma garanaysaa liisanna laga qaadaynin warqadna loogu xidhayna way jirtaa ruux hadduu liisan ba lahayn gaarigii in sharciga la geeyo weyaan sharcigu ma ogolo ruux isagoon liisan lahayn inuu wadada isticmaalo uu ka shaqaysto sharcigu ma ogolo waa dembi waa ku xadgudub xeerka sidoo kale gaarigu hadduu taarikada lahayn ama labada taarika ay mid ka maqan yihiin iyaduna waa laga xidhayaa oo halkaasa la geynayaa sidoo kale gaarigu haddii sanad calaamadii booladii sanad lahayd uusan gaarigu ku dhajinin iyaduna gaariga waa laga xidhayaa uma ogola xeerku inuu ku shaqaysto haddii gaariga caafimaadkiisu uu wax ka dhimaya oo calaamadihii waxa la yidhahdo maansabaaraqyaama lifidka xagga dambe lagaga dhajiyay gaadiidkii iyo aduu caafimaad darra ama ilbaa baktisan iyaduna waa laga xidhayaa qodobada iyagana waa laga tallaabo qaadi oo halkaas lageen ruux hadduu amar diida sameeyana waa laga xidhaya gaariga laakiin waxyaalaha rabo bulshada inay fahanto waxaad arkaysaa ruux shakhsi oo gaari soo kiraystay gaariga ruux markuu kiraysanaya waxaa loo baahanya inuu iska eego inuu booladii leeyahay inay labada taarika uu leeyahay inuu darawalku liisan leeyahay laakiin ruux intuu gaari kiraystay oo alaabta uu saartay ama ha ku guuro ama rar kaleetaba ha u wadee gaarigiina boolada ay ka maqan tahay ama liisan la-aan taarikaan intuu meesha laga geeyey oo ciidanku ka qabteen ku dhahayo gaarigaasoo alaabta iga saarayd baa layga xidhay in laga marka dadkuna inay sidaa u fahmaan waxa weeyaan waxaa jira iyaguna inta ugu hadal badan oo iyaduna dadku socodkiisa ku badan yihiin xafiiska idinkuna muxuu ahaa inta badan socodkooda dadku inagu wereeriyeen waxaa kamid ah mar walbana laga digaa gaadiidka bilaa sharciga oo bajaajta u badan tahay oo laga digo in qofku hadduuna gaarigan hore inaad ugu celiseen inuu sharcigii hadduuna wadanin xaafadiisa u yaallo hadduu soo baxase laakiin sharciga la marinayo arrimahaasoo ilaa imta hadda sii socdaan maxaad markaa bulshada aad ku warin lahayd mar labaad iyo mar saddexaad horta hal arrin oo in la isqabadsiiyo u baahan baa jiro iyadoon bulshadu wadahayn dadka gaadiidka ku shaqaysta inta badan waxyaalaha ka dhimanaya sharciga gaadiidka la xidhiidha aad buu tira badan yahay howlgal markay ciidanku bilaabaan cabasha kacda cabasho yaa kacdo cabashada waxaa keenayo in horta bal la isla ego ciidanku ma isagoo ruuxii oo gaarigiisii iyo isaguba ay sharcigu u dhamaystiran yihiin buu ruuxii si kale ugu xadgudbahayaa ma xubinku wuu saxan yahay oo gaarigii iyo shaksigii watay buu sharcigooda wax ka dhiman yahay shaqadiisii u haystaayo dadku sharciga in la mariyay diidan yihiin marka fariinta gaaban aan rabay inaan gudbiyo waxaa weeyaan xubinkii isagoo gaari iyo wada sharcigiisa u dhamaystiran yihiin ku xadgudbaya la arka tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya bulshaduna xubinkii ama shaksigii isagoo xeerka gaadiidka unu dhamaystirnayn wadada lagula kulmo tallaabo sharci ee laga qaadaya ciidanka xeerka dadka qabanba iyaguna qabanayo waxay dadku maamulayaan waa xeer xoog maaha marka
waan u sheegnay iyaga habeen kasta xilliyada shaqada ay ka baxayaan waan la kulannaa awaamiir baan siinaa weliba isbeddel degdega in laga arki doono waan aaminsanahay bulshadu markaa ciidanku wuxuu noqon doonaa wixii hadda ka dambeeya hadduu yidhahdo ciidanka kalsooni ku shaqeeyo oo wixii ruuxii sharcigiisu dhammaystiran yahay gaarigii sharciga dhammaystiran yahay ixtiraamo oo salaan ugu dara weliba ciddii ma garanaysaa sharcigeeda uu wax ka dhiman yahay tallaabo sharci ka qaado marka lama arki doono cid ma garanaysaa sharcigeeda dhammaystiran yahay oo lagu xadgudbo haddii la arkana tallaabo laga qaado ciddu ku xadgudbay baajaajyadu keliya maahe gaadiid badan oo shar lahayn baa hor jooga laakiin baajaajyadu waxay dheer yihiin baa jira inta badan dadka baajaajyada wata dad bay iskaga shaqaysto oo ma garanaysaa mas-uuliyadda saaran dareemahayo oo aan xadgudub sameynaynin oo qutulyomigooda uun ka raadsado oo siduu sharciga waxaa u shaqaystana way ku jiraan oo fara badan intooda badan laakiin dadka wato ee baajaajyada loo dhiibo intooda badan waa dad ama aan da-dii dirawalnimo gaadhin ama waalidkoodba intay u taag waayeen ya baajaajkaa la iskaga saansabahay weyaan sharci dal ama deegaan uu leeyahayna cid gaara lagu ixtiraami mahayo oo lagu sabansabi mahayo sharciga unbaa la marinaya sharciga unbaa la marinaya iminka waxaad arkaysaa kuwo aan sharci lahayn wadada siday doonaan iskaga soo gelaya marka la qabtana intay ka dhaadhacaan dhagax guran iyo ciidanka dhagax tuuri baa la arkaa waxyaalaha dhacay ka mid ah marka gaadiidka aan sharciga lahayn anuma kala reebaya baajaaj kaliya ma dhahayo ifalaga akaaliyo ciduu dooni ma ha noqdo nin kasta oo gaari le gaarigiisu inuu noqdo gaari uu u dhammaystiran yahay shuruucdii looga baahnaa shuruucdana waxaa weeyaan mastarataawii higood iyo waxaa jira wax la yidhaahdo shuruuc aasaasihiyo iyo wax iska dhacda maalinlaha gaariga haday booladii ka maqan tahay taarikadii ka maqan tahay caafimaad ahaan uu dhammaystirnayn liisanka darawalka uusan wadanin shuruucda asaasigeed baa ka dhima wax ilaa iyo mulkiilaha la xidhiidho wey ya tallaabo sharciga goobaha sharci baa la geenaya gaadiidka isaga waxyaalaha dhacdooyinka iska kediska qofku waa bini aadam uu khaldami karaa ruux isagoo sharciga leh khaladaadka yaryarka wadada ka galana hadba sidii ninkii saxmeeye hadal iyo waano ku saxmayana waa lagu sixi ninka kaleetana tallaabada sharcigu uu qaban baa laga qaadaya marka anu baajaaj kaliya ma dhahayo dadka gaadiidka sharciga aan lahayn haystaa kuwa horta dadka guud ahaan si guud bulshada markay gaadiid soo iibsanayaan waa in gaadiid sharcigan ay soo iibsato sharcigan ay u dhammaystiraan cidda loo dhaway sharcigan cidda aan ma garanaysaa aan haysatana guryahooda inay u yaalaan saacadda wixii ka dambeeyo ciddii lagu arkaa wadada iyadoo sharci ka dhiman yahay tallaabo sharci waafsan baa laga qaadahayaa cid ma garanaysaa lagu raaligelinhayo ma garanaysaa sharciga deegaanka u yaallay ama dalka u yaallana ma jirto annaga mas-uuliyadana saaran waxaa weyaan inaan kor u qaadno fahamka garaadka ma garanaysaa la xiriira xeerka iyo nidaamka looga baahan yahay gaadiidka iyo cidda wadato inaan wacyigelin samaysno hadday warbaahinta tahay iyo hadday si kale tahay inaan u wacyigelino oon ku dadaalo oo waajibada annagana saaran aan ku dadaalayna laakiin iyagu waxaan kala dardaarmahayaa ciddii gaari soo iibsanayso ama baabuur soo iibsanayso inay soo iibsato gaari sharci leh una dhammaystirto shuruudihii sharciga ma aha waxaan la hadlaya dad shacaba maaha ciday doonta ha noqoto ama hay-adaha aan dowliga ahayn ha noqoto ama xafiisyada dowladda ha noqoto gaadiidka waa in sharcigiisii la dhammaystiro ciddii sharcigeeda u dhammaystiri waayo ciday dooniba ha noqoto tallaabo sharciya laga qaadi ciidankay noqotay ciidanku waxa weeyaan tallaabooyin saxitaan yaan bilownay tallaabooyinkaas saxitaan aan bilownay dee ciddii ma garanaysaa xeerka siduu qabo ku shaqaysiiyo nidaamka sharciga ana askari xuquuq lahoo ma garanaysaa xuquuqdiis la ilaaliyo oo ma garanaysaa shacabka u shaqeeyuu noqonaya ciddii ma garanaysaa anshaxeedu dhibaato anshaxaan u qabtana tallaabo ma garanaysaa la xidhiidha shaqadeeda yaa laga qaadahaya marka xeerka gaadiidka xeerinhayo in lagaga tallaabo qaado ee u dambeeyo bayaanka tirsigiisa la yidhaha 395 darawaliinta keliya kama hadlayo xubnaha mangar trafficta qotaataariga la yidhaahdo ama xubnaha dabagalka gaadiidka wadooyinka la yidhaahdo laftooda qodobo qabanhayo yaa jira soo aad garatay maaha shaksiga lama aflagaadayn karo looma gacan qaadi karo isagoo warqad la siinin liisanka lagama qaadi karo ruuxa sharciga u hogaansanaya sharcigiisu dhammaystiran yahay maryan lababa in laga waaniyo khaladaadkiisa oo wax loo sheego wacyigelinta tan aan halkan xafiis ka samaynayno un maaha iminka wadada taagan laftiisa
dadka uu la kulmayo waxa loo baahan yahay dadka sharciga lahayna talaabo sharciga inuu ka qaado dadka sharciga lana inuu waaliyo xushada loo baahan yahay laakiin wuxuu sharcigiisa dhameystiran yahay oo hal mar uu khaldamay oo ma garanaysaa in si kala loola macaamilo ma fiicno arrinkaas waa kala halgamaynaa ciidanka bulshadana sharci darrada kala halgamaynaa soo garan waxa laga talaabo qaaday bulshadu kaliya ma ama dadka gaydka wato kaliya ma ciidanka laftiisa cidda sharciga ku dhaqan talaabo laga qaaday وهجاك أخيار تشرفت لها وذا سنة وسكنا نور صعدوا برنامج اللي تطبعات كان يسكون كبولس كبرشدنا انتهى نوجوجو طبعا برنامج كتطبعات نوحة مرتين وها تريها عيدا كأمريكا ودوينكا كمش كبولس كدولة ديكا الصومالية عبد الله محمد صلادة طبعا وكامردي سنتايو قرمة أنا وعيد أحمد بوحي جلس عسيري وحالي قلنا فينا برنامج كان مثل مدة كل دولة صدايو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.